السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو داوada daawadayaashan qiimaha badan ee inoo xiran kanaalkeena umada ee YouTube. Haddaad ku cusubtahay daawada inoo soo biir adigoo taabanaya calaamadda subscribe kadibna furo gambaleelka si ay ku soo gaaraan muuqaalada waxtarka leh ee lagu baahiyo kanaalka. Hana ka ilmaamin muuqaalka inaad like saartid ee uu gudagalno muuqaalkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa insha Allah dad nasiib leh iyo dad aad la yaabi doonto daawasho wacan. kaamirmaankan waxa uu ahaa mid sawir qaadayo diyaarad deganaysa ayaa sigtay isla markii sawir ayuu ka qaaday diyaaradii. darawalka xamuulkani muusan arkayn baaskiilaha angoolada sii galayo oo waa uu ku dhuftay fiiri ninkan nasiib wanaagiis. Allahu akbar. ninkan sidoo kale waa nin nasiib leh bal qiyaas ninkan nasiibkiis. dhagaxan waxa uu ka soo dhacay taagaas sidii uu soo dildiloomayay ugu dambeyntii gaariga ayuu ku dhacay. darawalka dhagaxani wax muusan gaarsiinin. gaarigan xawaaraha ku socdo waxa uu ka badbaaday shil laba gaari ah. darawalka gaarigan waa mid nasiib badan oo waxa uu horgooyay tareen. darawalkan jeeneeska ah waxa uu soo baxay shaqo laakiin bir weyn oo dhismo ah ayaa ku soo dhacday baabuurkiis korkiis. nasiib wanaag asiga waa uu ka badbaaday. nimankan cagafka bay lugta ka bedelayeen laakiin cagtii ayaa ku qaraxday. maxaa ku dhacay bal daawo. sidoo kale nimankan buuraaleyda ah waa kuwo nasiib badan oo waxa ay ka badbaadeen dhagaxan soo dhacay. gaarigan waxaa ku soo da'ay baraf kabacdi waxaa ku soo dhacay dhagax weyn oo biibayo. dhagax weyn oo ka yaabiyo rakaabka gaarigani waa xili uu dhilgariir ka socday magaalada Toroka George ee Taiwan. ninkan oo lugeynaya ayaa waxa uu ka badbaaday shil bas iyo gaari asagoo orod ku gudbay wadada. ninkan sidoo kale waa nin nasiib leh sidii ninkii hore. gaarigan waa uu soo taraaraxay daawo siduu u taraaraxay baabuurkan. nimankan meesha taagan waa kuwo nasiib leh oo waxa ay ka badbaadeen gaari soo fariin goostay. sidoo kale gaarigan waa mid soo fariin goostay laakiin shilkan cidnaba wax kuma gaarin. niman naftooda khatar geliyeen. nimankan waxay ku ciyaarayeen kushineeto xilli gawaarida xawaare ku socdeen. ninkan waxa uu gooyay wadada xilli tareen xawaare sare ku socday. ninkan sidoo kale waa nin nasiib leh waxa uu ka badbaaday tareenkan halista ah. ninkan jaranjarada buu ku dhici gaaray. dadka markay goonayaan wadada tareenka waa kuwa sigta oo ka badbaada tareen xowli ku socda. ninkan waxa uu si fiican u xirtay kabihiis si uu kala footo ugu hor ciyaaro tareenka markuu busteejada ku soo xiranayo oo ninkan naftiis buu khatar geliyay. nimankan mootada ku socda waxaa soo ceersaday maroodi oo ay ka carareen. baskan waxaa daaqada u soo istaagay maroodi wuxuu ka rabaa talo maleejo buu ka qaadanayaa maya leejo kama qaadanayo
oo wuxuu kaliya uu rabaa cunno. waa ay siiyeen wuuna iska taagay maroodigii. ninkan waxaa xawli ku garab maray gaari waa uuna jah wareeray. goomistaa waxa uu aariyeenayaa cagta. maxaa ku dhacay bal daawo. darawalka mashiinka kaxeynaya waa mid nasiib leh. daawo siduu khatartani ugu badbaaday. tuugadan waxay jabsadeen baqaar. alaabtiisa ayay iska raranayeen. waxaa ku yimid milkiilihii oo xoolihiis ayuu ka ceshtay wuxuuna ka bursaday baangad. hadba daawade inala wadaag qaybta hoose ee faalooyinka qaybtii adiga kula cajiibsaneed. ana ka ilmaami muuqaalka hadduu ku cajibgeliyo inaad like saartid oo nala sii wadaagtid asxaabtaada. waxaan mar labaad xasuusinayaa asxaabta weli inagu soo biirin inay inagu soo biirto ee kanaalka ay rukuntaan. waa mahadsantihiin dhammaantiina daawadayaasheena qiimaha badan ee inala soo gaara barnaamijka muuqaalkana maanta. waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaano Allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.